بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalayaal waxaad ku soo dhawaataan xalqadihii koobnaa ee aan uga hadlaynay sidaan uga faa'iideysan lahayn bisha Ramadaan ee barakaysan. walaalayaal, si uu soonkeenu u noqdo soon sax ah oo Ilaahay raali u ka yahay, soonku wuxuu leeyahay aadaab buu leeyahay. aadaabtiisu waa in la ilaaliyaa. aadaabta soonka marka waxaan u qaybinaynaa laba qaybood. qaybta hore waxaan ku soo qaadanaynaa al-aadaabu alwaajiba lisiyaam, aadaabta waajibka ah ee qofka sooman ama soonka loo doonayo. walaalayaal, qof walboo sooman waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo wax alle wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala isaga uu waajib kaga dhigay. waxyaabihii ilaahay uu waajib nooga dhigay inaan ilaalino, oo ay ugu horeyso salaada oo waqtigeeda lagu ilaaliyo, jamaacadana lagu tukado, masaajidana lagu tukado. marka wax walbo waajib oo ilaahay dusheena saaray inaan ilaalino aadaabta soonka ayay ka mid tahay. maxaa yeelay salaadu, walaalayaal, waa tiir ka mid a tiirarka islaamka ah, oo weliba lagu ilaaliyo shuruudeedii iyo arkaanteedii, cilmigeedana la barto. waxay ka mid tahay aadaabta soonka ee waajibka ah. ka waran haddii qof uusan tukanaynin haddana waan soomaya uu leeyahay, gaajo unbu isku dilaya. maxaa yeelay tartiibta arkaanta islaamka shahaadateyn kadib salaada ayaa ku xigta. qofka aan tukanayninna axaadiistu waxay tilmaamaysaa inuu diintaba ka baxay, man tarakaha faqad kafar. subxaana allah, inuu diinta ka baxayo. marka salaada horta in la ilaaliyo oo waqtigeeda lagu ilaaliyo ayaa maaragtay aadaabta soonka ka mid ah. jamaacadana lagu tukado oo masaajida la yimaado. waxaa ka mid ah sidoo kale aadaabta siyaamka ee waajibka, in qofka sooman uu ka fogaado waxyaabaha ilaahay uu xarimay. haddii noqon lahayn wax lagu hadlo ama wax la sameeyaba, waa inuu ka fogaadaa beenta. waa inuu ka fogaadaa beenta oo ah, of course, ujeedada beenta waxaa loo jeedaa alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic. qofka wax aan jirin inuu dadka u sheego oo been uu sheegay isagoo sooman, xaaraan weeye. maxaa yeelay beentu waa shay lagu naar tago wey. ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar buu yihi nabiga alayh salatu salaam. beentu faajirnimay kugu hanuunisaa, faajirnimadana naar bay kugu hanuunisaa. beenta in laiska ilaaliyo. tan labaad, xanta in laiska ilaaliyo. walaa yaktab bacdukum bacdan buu yihi ilaahi subxana wa tacaala. tan saddexaad, namiimada iyo dadka isku dirkooda iyo dadka in fidno dhexdooda laga sameeyo in laiska ilaaliyo. aadaab waxa weeyaan waxyaabahaas oo dhan wax fasahaadin kara soonkaagi weeye. ma aragtay warka badan iyo oo maalayacniga ah oo runtii iska maanta o dhan qofku uu hadlayo aan qiimaha lahayn in laiska ilaaliyo, oo qofku uu maaragtay ku bedesho waxyaabahaas oo dhan wax ka khayr badan oo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba u fiican, hadday noqon lahayd dikri ilaahay iyo qur'aanka akhrintiisa iyo wixii la mid ah. marka aadaabtaasi waajibka waa inaan sidaas aan u ilaalinaa. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.